عاشق الجنان والفوز والغنيمة، فخذها بالمعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة، بالحب والوفاق حياتنا كريمة. علي فولدر ميديا علومta diiniga iyo culimo aad u wanaagsan gudbintoodu wacan tahay ayaa kuugu diyaare ku xirnow casharada ay bixiyaan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحديث التاسع والثلاثون حديث كالصدن إيساقالات الغيرة وحكوسة بسنية وحلية الغيرة غيرة ومصيرك قفك مركي محارنتي إيو حيابه مركز جارك أو أهاي markii maaragtay loo gacan dhaafo ama khalad oo dhaco qofku mu'minka ah masayrka oo masayrayo ama uu ka caroonayo arintaas ayaa ghayra la yiraahdaa. waa darsigii 19aad ee kitaabkayni Tuhfatul Mushtaq. waxaan soo gaarnay xadiidka 39aad wuxuu ku saabsan yahay waxa la yiraahdaa al-ghayra. عن أبي هريرة وحال قوري رضي الله عنه أبي هريرة الله كراضي نقضيه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحويري المؤمن مؤمنك يغار مؤمنك ومصيراه والله إلهي أشد كدرا غير من غير حق غير ده مؤمنك ومصيراه markii macnaha waxyaabaha xurumaadkiisa loo gacan dhaafamo lagu xadgudbo ama khaladaadkaas ay dhacaan uu ka masayrayaa uu ka caroodaa arintaas uu ka xumaadaa. ilaahay ayaa ka daran xagga qayrado hadii ruuxa mu'minka ahi oo maxaarimta ilaahay ku dhaco carada ilaahay uu caroonayo iyo sidoo arintaas ilaahay uu nacayo ayaa ka daran way taas. qayrada marka xagga ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa loo jeedaa qofka mu'minka hadii wax khalada uu galo oo waxyaabaha ilaahay xarimo sidoo ilaahay uu caroonayo. hay'al xadiidkii Imam al-Bukhari iyo Muslim balaftirkooda ayaa fasiraya xadiidkan hadda waa gaaban yahay mid Abu Hurayra oo warinayo sidaan ahaaya wax jiro nabigu uu yiri wa ghayratullahi an ya'tiya al-mu'minu ma harrama Allahu alayhi. ghayrada ilaahay waxay noqonaysaa ruuxa mu'minka ah inuu la yimaado wixii ilaahay uu ka xarimay فواحشتي iyo waxyaabihiisa manhiyaadka ilaahay ka reebay ruuxa mu'minka inuu ku dhaqaaqo taas way waxa ilaahay ghayradiisa ay ka iimaanayso ilaahay uu kugu caroonayo. laakiin sifadan ghayrada la yiraahdo mu'minka xaqiisa waa mamduux waa lagu amaanaha qofka mu'minka waxa la rabaa markay maxaarimta ilaahay lagu xadgudbo ama xurumaadka asiga waxyaabaha uu gaarka u leeyahay lagu xadgudbo inuu ghayroodo oo arintaas uu ka dhiidhiyo oo san noqon qof la isaga dul socdo waxyaabaha xaraamta ee dushiisa hortiisa lagu sameeyo oo diyaasa uu ku dhicin sidii maaragtay wixii dayuuska lagu sheegayo dayuus waxa la yiraahdaa moogta qofka maxaarimtiisa iyo waxyaabaha uu mas'uulka ka yahay fawaaxishta iyo xumaanta iyo la isaga hor sameeyo. tusaale ahaan qofkii gabadhiisii uu dhalay inuu u ogolaaday inay nin ajnabiga iyo iskala fariisato ama iskala joogto meel gooni la tagto xaasaskiisii oo kale ayagoon asurayn inay ragga ajaanibta ay iska soo dhex galaan iyo arrimaha noocaas oo kale in qofka uu ogolaado waxa la yiraahdaa waa dayuusnimadaasi marka ghayradu ka soo horjeedaa qofka mu'minka waxa la rabaa waxaasoo kale inuu diido uusan ogolaanin oo damiirkiisu uu diidi karo waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala arag gelinayo inuu asaguna ka caroodo oo uu diido waxa uu mas'uulka ka yahay saasa la rabaa. arintaasna waa mid maaragtay akhlaaqda fiican kamid ah hadaba sheekhu uu soo qaatay maadaama kitaabka dhanba wax looga hadlaa ee eeday at-taskiya wal akhlaaq ana dhaqanka fiican iyo in maaragtay oo mu'minku qofka mu'minka looga baahan yahay la tilmaamo. waayahay marka xadiidkaas si guud wuxuu noo tilmaamayaa arintaas ghayrada ah oo maaragtay qofku inuu xurumaadka ilaahay uu ilaaliyo inay arin fiican oo wanaagsan ay tahay. baabun fi haqiiqati kamal al-iiman. baabun hada midkani baabun waa baabkaas oo fi haqiiqati kamal al-iiman iimaanka kamaalkiisa xaqiiqadiisa dhexdeeda ahaaday. macnaha baabkan wuxuu ku saabsan yahay
iimaanka dhabta ah sida uu yahay ama qaabka uu yahay waana baabkii ugu dambeeyay kitaabka الحديث الأربعون حديث كأفرتنات هذا محله عن أبي هريرة حقي سوحا لقوري رضي الله عنه أبي هريرة الله كراضي النقضي قال أبو هريرة وحوري قال رسول الله رسولك الله وحوري صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين تمتك وكامل نمبضا إيمانا من إيمان حق إيمانك أحسنهم مؤمنين تمتك وناك بدن واي خلقا من خلق حق أخلاق ذا النبي وحولي عليه الصلاة والسلام مؤمنين ته وحا كامل سن حق إيمانك قفك مؤمنين ته إيمانك معناها إيمانك سو كامل سن لأن كمال الإيمان على جهل ياهي مؤمنين تمتك إيمانك سرية حق إيمانك متك كامل سن ومتك أخلاق في عنه ودقنك وناكسن سيدا سولي النبي عليه الصلاة والسلام marka qof kasto ma aragtay dabeecad wanaagsan hadad aragto oo dabeecadiis fiican tahay oo waxyaabihii aan soo marno abwaabti khuluqa ama husnul khuluqa ku sifaysan qofkaas iimaankiisu waa kaamil kullama aad aragto qofkii inay akhlaaqdiisu ay xunta ama dabeecadiisu ay liidatane iimaankiisu qofkaas daciif waaye iimaankiisu waxba ka maqan dacfi ayaa ku jiro saadartee marka waxaan isu dardaarmaynaa dhamaanteen inaan maaragtay iimaankayna kobcino waxyaabaha iimaanka kobcinayo akhlaaqiyaadka fiican oo ku hadda kitaabkan aan ku soo marnay iyo kooyow kala ah in aad iyo aad aan ugu dadaalno runtii kitaabkan waxa uu ahaa kitaab aad iyo aad qayim u ah markaad fiiriso jawaanibta uu ka hadlay xagga maaragtay akhlaaqiyaadka ah وآد يأد كتاب ماركتي مهم وقفك مؤمن كاهس إنه كو صفات كاسية المامهاس أو قاطع مهم التهوى وحيابها ماركت كتاب كقيبة كلا دوان أو صوشي أو ماركت كوساب سن قيبها أخلاق ذا إيكا كوبانتا أبواب تحسن الخلقة سيده هذا مثلا حشوت كالحياة وحكسو هذا لني وكتابك أنكسو قادنو إن آد صفو ناكسن الورع حلال ميرتك وقفك إنه مارت حلاشة كود دار وحرامته إسكجره زمن كأن جونا آدي أنت توصية أذكت هاي سيدو كلا وحك صامرني العفة قف إنه إصدور مر والبقف دور صدق والنقضة وحكم إذا الصدق رنت إن لجود داله أمانة إن لجود داله قناعة إنه قفك قناعة سمايو دينتي سكو قنعة تدنمدي سكو قنعة هنتي إلهي وحوسي وكو قنعة aqoontiisa oo ku qanco ayadoo markaas qanaacadu macnaheedu aysan ahayn hadii aad waxaysato inaad wax kale sii raadin waxaad haysata nawaad ku qancaysaa ilaahay uga mahad celinaysaa wixii ka dhiman waad raadsanaysaa sidoo kale waxyaabaha maaragtay aad kitaabka aan ugu soo marno muhiimka oo in maaragtay la isku baraarujiyo madax waxa kamid ah sabarka sidoo kale kitaabka waxaan ku soo marno sifaadka wanaagsan ah arifqu qofku inuu naxariisto oo maaragtay qof dhimriye oo noqdo dadka u tura sidoo kale waxaan soo marno aad u muhiim u ahay alxilmu dulqaadka waxaan soo marno kale arrahma naxariista sidoo kale waxaan sifaadka wanaagsan oo kitaabka ku soo qaadana kamida salaamatu sadri qofku inuu qalbigiisa uu iska u baneeyo qofka dadka muuminiinta oo qalbiga xumaan ugu qaban sidoo kale waxa kamida kadmul ghayd arada in la qariyo qofku haduu caroodo uusan caradiisa fulin waxa kamida tilmaamaha wanaagsan oo kitaabku noo soo sheegay al-ihsan in ihsan la sameeyo khalaa'iqda ilaahay loo ihsan falo waxa kamida at-taawun in la iskaalmeeyo muuminiintu isu kaalmeeyaan wanaag isu kaalmeystaan waxa kamida al-karam deeqsinimada sidoo kale waxa kamida al-iithar qofku inuu walaalkiis wax u dooro oo naftiisa uga dooro cadaaladda kamida heeda waxyaabaha aan soo marno wanaagsan kitaabku noo soo sheegay waxa kamida as-samaaha qof inuu noqdo qof sahlan oo maaragtay markuu dadka muaamalada la sameeyo oo beeca iyo wax la mid la galayo wax ka gudsanayo inuu noqdo qof sahlan oo qof adago dadka ku adkeeyo oo soo noqonin waxa kamida waxyaabaha wanaagsan oo kitaabka ku soo marna al-afwu in la iscafiyo sidoo kale in la awrad maaragtay ceebaha la soo asturo waxa kale oo soo marno wanaagsan al-birru samaha in laga shaqeeyo samafalka تواضع إن قف إلهي إسوديبه
in laga shaqeeyo ulfada iyo isla jirka mu'miniinta sidoo kale albashaasha furfurnaashada dadka mu'miniinta qofku inuu si furfuran iyo si uu soo dhaweeyo waxyaabahaas iyo wixii lamid ah sifaad wanaagsan oo kitaabka ku soo marnay dhamaantood marka aan isku dayno inaan maaragta taabagelino oo aan maaragta ku dhaqanno insha Allah ta'ala kitaabkayni marka ahay tuhfatul mushtaq oo 40 xadiis ka koobnaa intaas ayuu noogu dhamaaday insha Allah ta'ala wixii kaloon markaas uu ahay aan ku xijin doono oo kitaab kala ah waan isla soo wadaagi doonaa insha Allah wixii allaala wixii maaragtay aan saxna ilaahay uga mahadcelina hadii ay dhacaan marka bini aadan baa la yahay waxyaabo oo maaragtay khaladaad oo xagga sharaxaadiisi iyo ay la arkane in la soo wadaajiyo waan isla soo wadaagno oo maaragtay isoo wargelino si aan u fiirino oo saxno taasna insha Allah ta'ala dadka dhageystayaasha aan ka codsanaya ilaahay ku mahadsan awalan wa aakhiran bilowgi hore iyo dhamaadkaba intaas ayuu noogu egyahay darsigeyna hada wabillahi tawfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة إذا فشى النفاق والغش والنميمة والبخل والشقاق والجور والظليمة.